waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo qiso cajiib ah ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hinduus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimka ee ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu saari jiray ama container marka buu saari jiray ninkii maal qabeenka ahaa reer Australia ahaa Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbu ka yiri markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka wala cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday buu waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu yiri culimada inaan soo weydiin in shariicadaydu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaase ii banaanayn wuu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo waana xadiis saxiix oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam uu sheegay uu yahay ninkii war inta oo sanaan saaxiiba ah inuu wada mucaamaloonay maxaad igu qaadi weydeen ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ii saamaxayna ku qaado gabadhiisii baa markaa inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tiri aabo ninkan muslimka inta oo sanad la mucaamaloonaysi muxuu inoogu qaadi waayay bay tiri ilaahayna aabo waa diintiisa ogolayna naga daabuudi aaba raay baan ka qabaa bay tiri halka raay baan ka leeyahay raaygaan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay xambarino waxay tiri ani arintaas maskaxdeeda ma galeysay tiri war kala keen فكرت لكن مسلم كيف التلفون كيس قبشتي ولا هذا الشيء وحيت بريت ولا انكم اركان دونيا وايو وين انت ودق عين كاس او دلي ويانا ما انت كنت مد يا ابيه لا صوتي ابيه لا صوتي كان dalbo marka ku martay qaaday markay u timiday wuxuu marka islaantiisii buu soo kaxaystay oo xijaaban oo gabadh mutadayinada markaas u soo gashay hoteelkii halkaada gabadhii fadhiisatay waxay tiraanu adigan kula ballamay ruuxan kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskaygi diinteeda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyay adiga mahram badita mahram imati mahram badu baanta nabi maxamed baa yiri ninna naaga ajaaniba inuu san la kaliyoobin illa mahramkayga la jooga mooyaan alayhi salatu wasalaam taana horta qacbay ku tiri qalbigeedii diin bal ya meesha taale waxay tiri su'aal baan ku weydiinaya diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay shay الله بنا من سنة لا تدركه الأبصار وهو
tudriku al-absaar cirka abuuray dhulka abuuray marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhii dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabaheed ay ka dhaadhicisay diinta islaamka oo labadii waalidoo da'wa weyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayada marka ayahay